الحكمة ريديو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خير. سؤال شو رئيس قبل وحيد هذا هاي منكيga wuu idilay waana idajiyay ilaa aan kamiin beelay ilaa haddana nabaradii waa igu yaalaan marka ma ka furmaa mise kama furmo. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلوات ربي وسلام عليه xilligiisii waxaa dhacday dumarka qaarkood ayaa waxaa dhacday inay guryihii kala dambayntoodii iyo ka amar qaadashadii ay ilaalin waayeen. markaasaa waxaa dhacday rasuulku sallallahu alayhi wasallam inuu idmay oo yidhi dumarka idbiya. maalintii dambaa waxaa dhacday dumar fara badan oo dacwoonaya oo raggoodii ka dacwoonaya inay garaaceen ayaa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oo guryihiisa yimid. markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ragga dumarka garaacayay akhyaartiinii ma yani waxa weeye laysa ulaa'ika bikhiyarikum nabi sallallahu alayhi wasallam oo kama qaal kama fi sunan abi daawud kuwaasi akhyaartii ummadda ma aha. saas daraadeed rasuulku wuxuu yidhi khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi. kuwa idinku khayr badan waa kuwa ehelkoodii iyo reerahoodii xaasaskooda ugu khayr badan, kuwaasaa idinku khayr badan. aniguna nebi maxamed haddaan ahay sallallahu alayhi wasallam waxaan ahay ninka reerkiisa ugu khayr badan oo ugu fiican baan ahay nabi sallallahu alayhi wasallam. sidaas daraadeed dumarka xataa xaaladda la ogolaaday qur-aanku edbintooda wadribuuhunna fi suurati الnisaa waxaa lagu qayday hadday noqoto xataa edbin uu ka maarmi waayo inuu noqdo waxaan nabar u geysanayn oon jidhkeeda dhibaato u geysanayn keliya lagu dareensiinayo uun xaaladdu in ay gaadhay meel halis. laakiin macnuhu ma aha ama laf ha la jabiyo ama jidhkeeda nabar ha lagu sameeyo ama dhiig ha laga keeno ama ma aha. taa haddii uu ka maarmi waayo culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan fasility iyo wax yaroo sidaas oo kaleeto xaalad uun lagu dareensiinayo arrintu inaysan fududayn oo gabadhu bal inay maskaxdeeda ku noqoto dib gurigii iyo arrimihiisii intaasun wey. amaa garaacista nabarka iyo dhibaato gabadha loo geysanayo shareecada islaamku ma qabto, waana jariimo wey, dembi weyn wey, waa arrin khalada weye. nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam midkiin intuu garaaco miyuu haddana la seexanaya xaasaysanaya? tad xaaskaaga sidii dameertii oo kale u garaacda haddana inaad la seexato ood macnaha wax wey wax ka raadsatahay waa wax yani wax weeye aad u liita way. marka arrin shareecadu ogoshahay ma aha dilka noocaas oo kale ah. laakiin hadduu dhacay oo jiro labadii ruux xadhiggii ka dhaxeeyey isqabidoodii wax yeeli maayo. xadhiggii waa jiraa, waadna isqabtaan, waadna isku mehersan tihiin. haddii ay noqoto in la sii wada noolaan karana ha la sii wada noolaado, wada joogiddiinnii sharcan wax dhibaataa ma gaadhin. haddii aan la sii wada noolaan karayninna hadda dariiqyada markaa shareecadu furtay ha la maro oo qaraabo iyo ehel arrintu ha galaan. qaraabo iyo ehelkaasaa lagu hormarayaa, ilaa lama rabo guriga arrinkiisu inuu bannaanka u baxo, lama rabo in waddooyinka laga sheekaysto iyo dariska iyo qaraabada lama rabo. gurigu waxaa la rabaa gacmo geejira hoosaa loo dhaqayo inuu qarsoonaado arrinkiisu. allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha. ninka qaraabadiisa nin ka mida, ruux ka mida, iyo qaraabada gabadha ruux ka mida la saaraya arrinta galaya. hadday u arkaan labada ruux inay sii wada joogi karaanna way isku hagaajinayaan. hadday u arkaan inaynay wada joogi karinna way kala furayaan. haddayna qaraaba soconaynin oo qaraabadu ayna wax maamulaynin arrintii ka gaabisay in la wada joogana ay adkaatay, markaasi waa inay gabadhu ay ka codsato furitaan. waa haddii aan la wada noolaan karin wey. noloshu sabir bay u baahan tahay in laysu sabro, laysu dulqaato. marmarka qaarkood shaydaan baa dadka ka dhex shaqaynaya, shaydaan baa guriga inuu dumiyo doonaya. ha laysu dulqaato. haddii laysu dulqaadan waayo noloshu adkaato markaa dariiqada shareecadu furtay markaa ha la maro. laakiin garaacistu ma keento inay gabadhu furanto. wabillahi tawfiiq. marka
maxaa la iga rabaa bay tii marka dhowr su'aalood isku isgalgalay soonka waan soomi waayay bay tii gabadhan kaleetana waan soomi waayay maxaa igu waajibay anigoo umma yaa soon igu soo galay waan soomi waayay maxaa waajib u ah soonki miya qoladan soonku ka tagana soonki miya lagu jibaari noqonaa ilaa bismillaahir rahmaanir rahiim sunan abi daawud waxa ku yaala حديث أنس بن مالك الكعبي والنبي كورني صلى الله عليه وسلم ورسول كوري صلى الله عليه وسلم إن الله وضع صيام وشطى الصلاة عن المسافر الله سبحانه وتعالى وحكدت شيء صنك هي صلاة النسكت روح الصعطة وحا حديث كوري وعن الحامل والمرضع الصوم وحدي لها الصوم haweeney uurka leh iyo muddo nuujinaysana alla wuxuu ka dajiyay soonkii hadidkaasi wuxuu tilmaamayaa haweeneydu uurka leh hadduu u soo galo soonku oy ku dhibaatoonayso inay afuri karto kadaalika markay nuujinayso haddayna soomi karin soonku ku adkaado way iska afuri ha afurtay maxaa laga rabaa inay dib kala timaado mas'ala ay aad culimadu isugu khilaafsan yihiin qaarkood waxay leeyihiin waxba lagama rabo qaar waxay leeyihiin cunta laga rabaa qaar waxay leeyihiin qalla laga rabaa qaar waxay leeyihiin cuntiya qalla laga rabaa intuba waa jirto culimadu ku kala tagsan yihiin wixii ay dib kala imaan lahayd laakiin sida fiican wax weeye oo ihtiyaadku ku jiro iyo taxadarku uu ku jiro wax weeye in ay soonto maalmihii ka tagay oo dib ka soo qalayso wax raashiina lagama rabo raashinka isaga wax daliil ma laha wala culimada qaarkood waa qaba laakiin daliil ma laha marka inay ismaalmihii ka tagay oo dib ka soo qalaysa laga doonayo waxa kale oo la rabaa ramadaanka kale intuusan soo galin inay ka gaarsiiso haday u suroobi weydo ku adkaato oo ramadaankii kale saa ku soo galo ramadaanka kale markuu baxo kadib ayaa sidii ugu surooday u qalaynaysa maalmihii mana siyaadayaan raashiinna lagama rabo haddiise laakiin ay iyadoo soomi karta intay faraha ka qaado ramadaankii kale ku soo galo markaasi khalad bay gashay tawbad baa laga rabo hadday u suuroobi weydo iyadoo jaanis u helinba oo tabarba u helinba ramadaankii kale ku soo galana ramadaanka kale wixii ka dambeeyay soomaysa sidii korba ay ugu fududaaday u qalaynaysaa wax kale oo lagu leeyahay ma jiro maalmihiina tiradoodii ma badanayso intii baa laga rabaa wabillahi tawfiiq jazakallahu khayr su'aasha waxay leedahay gabadha haddii aad tahay qof dumara aadna haysatid ilmo fitada ilmaha ma waxaa laga rabaa adiga saxabood baa laga rabaa haddaad ilma haysato sekada fitriga maadaa laga rabaa mise aabbaha laga rabaa jawaabtu waxa weeye ilmuhu hadday aabba leeyihiin mas-uuliyaddu aabbahay saaran tahay isagaana laga rabaa inuu ka bixiyo sakaatul fitriga isagaa laga rabaa inuu ka bixiyo sakaatul fitriga hadduuna haysanin oo hooyadu haysato inay ku sadaqaysato ilmaheeda waa fiicanta oo ilmaheeda inay ka bixiso hadduu haysto oo sidoo kale uu dayaco hadduu haysto oo uu ilmihii dayaco uu ka bixin waayo sakaatul fitriga waxaa fiican hooyadu inay ilmaheeda sakaatul fitriga ka bixiso way fiican tahay maxaa yeelay xoolahaaga inaad ilmahaaga sidaad adduunyadaba ugu tarayso aakhiradana aad uga bixiso waa loo baahan yahay laakiin waxba kugu laazimi maayaan maadaama aabihii joogo laazim kuguma aha laakiin hadaad ka bixiso way ku fiican tahay wabillahi tawfiiq su'aasha kale waxay leedahay gabadhu sheekh waxaad ka warantaa daawada madoobaysada ah ee aanu cidiyaha marsanno dambi miyaa noogu sugan mise way noo banantay bismillahi rahmaani rahiim culimadu waxay leeyihiin sidaan ku arkay sheekh ibn Uthaymin cali raxmatullahi kutubtiisa qaar ka mid ah madoobaysada gacanta la mariyo waa shay qara leh ama jurmi la waayo shaygu markuu qara leeyahay jidhkii wuu ka kormaraya jidhka markuu ka kormaro xilliga gabadhu ay qabays waajiba qabaysanayso biyihii jidhka gaari maayaan xilliga ay weysaysanayso biyihii jidhka gaari maayaan maxaa yeelay waxaa celinaya
madoobaysadii jidhka korka ka saarayd baa celinaysa. cilaanku waa ka gadisan yahay oo cilaanka waxay yidhahdaan shay jurmi leh oo jidhka korkiisa fuulaya ma ahe wuxuu gelayaa jidhka gudihiisa. saasay u kala qaadayaan. sidaas daraaddeed haweenayda cibaadaysanaysa ama qabays waajiba qabaysanaysa ama inay weysaysataba u baahan si cibaadadeedii ayna dhibaato u gaadhin madoobaysan ma marsan kartay leeyihiin culimmadu. wallahu aclam. الحكمة